mogtahay inay kuwan yihiin shaqooyinka adduunka ugu la yaabka badan kuwaasoo aanad rumaysanayn. kow, professional mourner. shaqadan waxaad ka shaqaynaysaa geeriyaha adigoo ka ooyaya oo muujinaya murugo. shaqadani waa mid soo jirtay qarniyo badan, gaar ahaan dalalka qaar sida Shiinaha, Masar iyo Gariigii hore. qofka waxaa loo kiraystaa inuu ka qayliyo amba ka ooyo xafladaha aaska si loo muujiyo tacsida qoyska uu ka baxay marxuumku. sidoo kale waxaa soo kiraysta dadkan qoysaska aan lahayn dad badan oo u balurdiiqa, waxayna mushaarahaan u qaataan sanadkii lacag dhan 30,000 ilaa 50,000 oo dollar. 2, dog food tester. qofka shaqadan haya wuxuu tijaabinayaa dhadhanka, urta iyo tayada cuntada loogu talagelay ayda. waxaa la hubinayaa in cuntadu aysan lahayn waxyaabo dhadhan xun leh amba sun leh. shirkadaha sameeya cuntada ayduna waxay rabaan inay hubiyaan tayada iyo nafaqada cuntada ay soo saarayaan, taasoo qof bini'aadam u baahan inuu tijaabiyo. waxayna mushaarahaan qaataan sanadkii 40,000 oo dollar ilaa 80,000 oo dollar. 3, professional smuggler. tani waa shaqo laga helaya dalal badan, gaar ahaan dalalka kale ah Mareykan iyo Jabaan. qofka shaqadan qabtaa wuxuu sameynayaa inuu dadka laabta geliyo isagoo hab siinaya oo laabta ku haynaya muddo dheer si loo yareeyo walbahaarka, karinnimada iyo xanuunada la xidhiidha jirka. waana mid ka mid ah shaqooyinka abid ugu la yaabka badnaa ee aad aragta daawade. waxayna mushaarahaan u qaataan sanadkii lacag dhan 40,000 ilaa 100,000 oo dollarka Mareykanka. haddaba daawade, adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo, waa tee shaqada xoogga kaaga yaabisay taasoo aad rumaysan weyday? qaybta kommentiga hoose iyagu sheeg. ha iloobin inaad follow noo saarto YouTube iyo Facebook profile ka saaranna aad subscribe dhaado.